Coronavirus wuxuu ku faafay caalamka oo dhan, wuxuu sababay walbahaar badan oo dunida ku fiday. Kumanaan kiisas cusub iyo dad u dhintay ayaana maalin kasta la soo wariyaa. Haddaba muwaadin, si aad u badbaadiso naftaada iyo dhammaan dadka kale, baaritaanka joogtada ah waa tallaabada ugu horeysa ee lagu xakameyn karo cudurkan. Godoominta kuwa uu cudurka ku dhacay waa muhiim dadaalka lagu xakameynayo inuu xanuunka sii faafo. Kala fogaanshaha bulshada. Sida la cadeeyay, cudurkan waxaa lagu kala qaadaa istaabasho iyo isu soo dhawaanshaha qof qaba iyo qof kale oo aan qabin cudurka. Ilaalinta fayadhowrka, sida in si joogto ah gacmaha loo dhaqdo. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay sheegtay in faraxalashada iyo nadaafadda oo la ilaaliyo ay aas-aas iyo gundhig u tahay ka hortagga fayraska. Iska ilaali inaad taabato indhaha, sanka iyo afka. Xiro maskarada iyo galoofyada, balse ogow inay leeyihiin difaac xadidan, mana bedeli karaan nadaafadda asaasiga ah. Calaamadaha ugu waaweyn ee lagu garto coronavirus waa xumad, qufac qalalan, cune xanuun, madax xanuun iyo in qofku urta ka guurto. Ugu dambeyn, waa in si gaar ah loo ilaaliyaa dadka nugulka ah sida carruurta, waayeelka iyo naafada. barnaamijkan waxaa idin soo gaarsiinaya Wasaaradda Haweenka, Arrimaha Qoyska iyo Xuquuqul Insaanka Dowlad Goboleedka Jubbaland oo kaashanaysa hay'adda Care International.